ولا إلى المدرسة ومدد إصلاح إيو نبض لو تشوغوي إلهي سبحانه وتعالى إصلاح وحقو فري لبدا قف wax ka dhaxdhacaan ama labaha ahaadeen ama beeraha ahaadeen ama dawladaha ahaadeen labada dhinac inay ayagu naftooda islaaxa ka shaqeeyaan baa ilaahay amray fattaqullaha wa aslihu dhaata baynikum baa subhanahu wa ta'ala ilaahay ka cabsado oo dhaxdiina islaaxiya baa subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala islaaxa waxa uu amray ummada kale ee ka baxsan ayaga ee meel ku nool ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray rabbi subhanahu wa ta'ala oo leeyahay fattaqullaha wa aslihu dhaata bayna akhawaykum ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada oo walaaladin dhaxdooda islaaxiya wala la yar aqli maaha qofkii wax dilay dabada hal marsado oo 10 kale iyo 100 kale ha ka soo mareen oo dhimasho u diyaar ah ولا لا يلا عقل معها قفبا دينتايه 100 نول iyo 10 nool laga dabageeyo ha dhinteen junuun weeye iyo waali weeye waxaas jahligaana dhibaatada noocaas leh aqliga iyo sharciga ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ina siiyay mid walba wax ka fog baa dhexdeena yaala ilaahay subhanahu wa ta'ala aqligana hayno soo celiyo sharcigeena ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna garansiyo eedo go'aamo hordhaca markaanu aragnay xilligan iyo xaaladda duruufeed ee ka jirta deegaanka dhibtu ka dhacday markaanu la tashanay tolweynaha daneeya wada dhalashada iyo walaaltinimada tolka dhibtu dhex martay markaanu qiimaynay baahida loo qabo in jawi degan lagu qabto xaajada waxaanu go'aaminay in magaalada Horufadhi ay ka caaganaato ciidamada urursan ee labada beelood ee Hagar iyo Hayaag waxaanu samaynay guddi nabadgelyo oo reer Horufadhi ah oo sugaya amniga iyo la socodka dhaqdhaqaaqa labada beelood 3 gogashu waxay taalaa magaalada Saaxdheer 4 muddada gogasha lagu tagayo waa 7 maalmood oo laga bilaabayo maalinta heshiiska la saxeexo 5 waxaanu qabanay labada beelood gudiyo u xaajeeya 6 wixii aan ku dhammaan wada hadal iyo sulux waxaa lagu galayaa shareecada islaamka 7 waxaanu xukun iyo ganaaxyo ka ratinay jabinta heshiiska qodobka koobaad dilka qofkii qof dila ama cidii qof disha waxaa lagu ganaaxayaa 50 halaad b dhaawaca ama cidii cid dhaawacda waxaa lagu ganaaxayaa 25 halaad xabadda toogaalka ah waxaa lagu ganaaxayaa 15 halaad weerarka lagu qaado magaalo waxaa lagu ganaaxayaa 50 halaad qodobka 8aad ganaaxa waxaa wada bixinaya intii magwadaag ah ama isku mag ah ama cidii isku mag ah 9 waxaa qaadanaya ganaaxa ama cidii ganaaxa waxaa qaadanaya dhibanaha ama cidda dhaxalkiisa iska leh qodobada 9 qodob bay ku kooban yihiin intaasay ku kooban yihiin go'aankan wuxuu ka soo baxay gudida nabadeynta ay ugu horeeyaan izimada cuqaasha culimada iyo waxgaradka wabillahi tawfiiq allah maadle shirka la isugu yimidna kii nabadii la waayay ku dhalan lahayd Allah ka dhigo ilaahayna waxaan ka baryeynaa cidii fidmo wada inuu fidmada ayada ku ekeeyo ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu nabada inoo xasiliyo aad iyo aad baa shirku u mahadsan yahay islaam baa tukatay waxay tiri baa la yiri ilaahu waa ku tukaday waana iga dhab ducaa marka ayadu aan la moodayeen garanaynin bay ahayd ilaahow nabada lagu dhawaaqay ee islaamku sheegay waa naga dhab cidayan dhab ka ahayna ilaahu ku hanuuni anana waa qaadanay wasalaam
qodobada nala soo jeediyey ee ay soo jeedisay ergada nabaddu waanu qaadanay waxaanuna u qaadanay si buuxdaanu u qaadanay si buuxda baanu u qaadanay waana soo dhawaynaynaa waana ka mahad celinaynaa alxamdulilah ilaahay baa mahad leh intii laysu sheegay un weeye waa xadayntii waan aqballay intii naloo sheegay insha allah bilmillaahi kariim waa qaadannay waana yeellay waana ku kalsoonnahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tani maanta inay noqoto tii ugu dambaysay ilaahayow waxaad nooga dhigtaa tii ugu dambaysay ilaahayow intaasi nagu filan ninkii wax xumeeyeyna ku filan ninkii wanaag rabana ku filan ilaahu tii ugu dambaysa nooga dhig waxaan aad ugu mahadnaqayaa mar labaad isimada iyo ergeyda iyo cuqaasha reer sool ee hawshan qaybteedii hore ilaa hadda daadihinayey ee ku soo dabaalay nabad dhex fadhiyey muddada faraha badan labadii beelood iyo meeshii dhibtu ay ka dhacday say u daadihinayeen nasaaka halkan isugu keenay aad bay u mahadsan yihiin waa fayskii koowaad waxaa la xidhay nabaddii waxaa la kala qaadayaa ciidamadii waxaa la soo saaray shuruuc lagu dhaqmayo ilaa gogasha dambe ee Sacdheer ku dhaariya labada beeloodee ilaahay baan idinku dhaariyay iska kaaya ilaaliya ilaahay baan idinku dhaarinay iska kaaya ilaaliya qayrka yaanu ka hadhnay Soomaali baanu ka hadhnay waxaana baabiistay wiilashayadii yaryarka ahaa intaasi intaa weeye inta ii raacdaa waxaa weeye waxaynu qaadanay maanta halka kan waxaa ka dhacaya maanta arrin weyn ilaahay weyn ee waaxidkaa baanu ugu mahadnaqaynaa fadhigeennan maanta ah kulankeenna maanta ah oo wejiga dadku ay ka wada muuqato xadaarad fiican oo toliimo ajiibay ee talkoodu qabsoomay ee waliba xanta naga soo gaaraysa ay xan wanaagsan tahay xan inay dareemeen meesha lagu socdaa inay halaag tahay iyagana waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo qofkii naga leexsana ilaahay haynoo soo hadeeyo intaana saasaan leeyahay hadalka wixii loo baahnaa runtii waa la yiri nin baan waxaan maqlay dhulbaanta aba qolo dhulbaanta intay shirtay buu wuxuu yiri say wax isugu tahay tani ma taqaana dhulbaanta ma yaqaan suu wax isugu yahay dadku sidoo wax isugu yahay ninkaas kuma aha Abdullah Haj Faarax waa say isu kala xigto dadku ma yaqaan buu say isu kala xigto isuma taqaano waxaan hubaa labadiina beelood ay sar fadhiya ragii la sheegay inay tihiinoo sida aad wax isugu tihiin aydan aqoonin anu hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynaa aan iskiin baro cid iska kiin xigtaa ma jirto balin walba adigu is weydii adigu si gaara isu weydii cid iska kiin xigtaa aan kelmadda idin baro waliba waxaan oran lahaa bal dhin walba shaq adigu kaliga anta qalbigaaga gali cid iska kiin xigta iyo cid isaga kiin roon midina ma jirto inta iga barta hadalkan intaasaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم كان ناقبشين انت كدب وحويان هلك كاني ومضل يا مرخاتي وحاسنا ان بدن بيسون نقدين ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa tii ay ku soo afgoosay inay tani tahay inaynu adkayno waa inugu waajib deegaanka odayaasha deegaanka iyo ciidanka qalabka sida ciidanka nabadgelyada ay dhaahdo waxaa weeyaan yana mahadcelintay ku jiraan waxaa kale u xil saaran yihiin sugidda iyo ilaalinta mar walba indhahoodu inay furaadaan wixii ilaahay karsiiyo intii ilaahay karsiiyo inteena kaloo dhan ee ka soo haraysa
tegista la tegaya saaxdheer waxaa ku waajiba iyaguna inay ilaalinta ka qayb qaataan daraawiisha cirkiina wakaas baa ninkii dhulkiina wakaa hawshaas intay soo noqnoqotay inta guri ku madoobaatay inta dhibaatay naga soo gaadhay caqligeenna saliimkaahi wuu arkayaa waxaana weeyaan caqligu inuu u guuro wanaagna wuxuu ku yimaadaa tanaasul la tanaasulay oo cidi hoos wuxuu eegtay waan badiyey baan u malaynaya laga akhriyey waa go'aamo hordhaca oo wakhtigoodu ku eg yahay inta go'aamada waaweyn ka soo baxayaana laga soo noqonayo meesha la yidhaahdo meesha dadka lagu heshiisiinayo xabad joojintay la socdaan egesbaayir bay leeyihiin markaasay dhacayaan oo go'aamo ka culculus ayaa soo bixi doona iyo boon ka culus baa soo bixi doona haddii laha idmo marka la soo heshiiyo oo meesha la tago qodobada haddaan intaa kaga gudbo waxaan leeyahay dhulbahantow waxba nooma hadhin garaadjaaca baannu ka iman jirnay aran jirnay warba adigu halkaagaa iska jooga annagaa tegtegayna meeshoo waxa weeye maanta waa wadnaa baabuurku markuu dheeqada kaa galo sangeyr baa la geliyaa bal inuu dheeqada ka baxo waxaan is leenahay bal colaadahan soo noqnoqonaya labadii hore oo midna taleex ahayd midna qayaad iyo baarasam ahayd ilaahay waa fududeeyey tanna waxaan rabnaa maanta inay ka daba tagto marka waa sangeyrkii weeye waa ridootadii laga saarayey wey ridootadii baa ku jirta maanta hadday ridootada ka bixi weydo baabuurka meesha waa lagu qalaa waa laga tagaa marka waxaan leeyahay ridootadii ugu dambaysay baannu wadnaa maanta waadna aqbalaysaan waa idiin ducaynaynaa guulaysta ilaahay waxaanu idinka barya xabad dambe inayna meeshan ka dhicin ilaahay waxaan ka barya carra dhulbahantoo dhan aan xabad ka dhicin ilaahay waxaannu ka baryanaa colaaddaas inagu dhacday iyo foolxumadaas iyo wiilashaa waxa weeyaan inaga baxay inuu ilaahay inoogu beddelo nabad iyo wadajir iyo waxa weeyaan quruxdaa aynu maanta isu dhex fadhinno inaynu isu dhex fadhinno kolley maanta waxa weeyaan dee xaajo halkan laguma furayn xaajadu waa inoo dambaysaa isimada reer caymaydna aad bay u mahadsan yihiin tan haddayan ka dabageyntii hore ay jigjiga geeyeen ay maanta reer sool ay u garteen waxa weeye aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxay yidhaahdeen reer buuhoodle markii ay warka noo keenayeen gobolka sool baa xaajada aanu maanta u daynay anna hadal baan ku daray oo waxaan idhi ninka soolna ka mid ah caynna ka mid ah xaggee buu xaajada ka gelaya waxaa la labada qayboodba waa gelaya waxa weeye haddaanu nahay salaadiinta waxaa la dhuuntabale af iyo moqorba u warhaysee daanuu caynna waanahay soolna waanahay marka waxaa weeye hawshan fayskeeda koowaad halkan baynu maanta ku xidhnay intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto intii naga dhimatayna ilaahay walad khayr qabe ha inoogu bedelo intii dhaawacatayna ilaahay ha u booqadhayo waxaan u malaynayaa qaybta labaad saaxdheer baannu ka dhignay waxaan uga dhignayna annagaa ogo waxyaalo badan markaannu qiimaynay soolna aad hawshii ku wareejiseen waxaanu nidhi annagoo siyaalo badan wax u qiimaynayna colaaddan aanu jecel lahay in mar dambe aynu soo noqon meesha keliyaanu kaga xilbixi karnaa saaxdheer bay noqotay runtii saaxdheer baynu tegaynaa taasna waxaa weeye innagoo gacmo haysanno oo xaajadeennu si fiican u soo xidhantay ayaynu insha allah ka soo noqon doonnaa isimada dhulbahantay gobol ma kala leh xaajana ma kala leh deegaanna ma kala leh insha allahu tacaalaa xaajadan waannu wada leenahay cid baannu u wada qabanaynaa gurigaannu joogno annagaa ka wada ah kama xigno cidina saaxdheer kama xigto cidina sool kama xigto annana cayn iyo sanaagna lama xigo iyo sool intaba insha allahu tacaalaa isimadu lixda isima halkan fadhida waddanka waxaa joogaan u malaynayaa deegaankan shirka ka soo gaari karaysa lixdan isim ee halkan fadhida ee anigu aan toddobada ku ahay iyo garaad saleebaan garaad maxamed oo aannu wargelinnay oo isna insha allahu tacaala haddii duruuftu u saamaxdo noo imaan doona haddii eebbaydmo intayaduba hareerahaannu ka istaagi doonnaa gogoshu waa gogoshayadii waannu wada dhignay dadka yagaannu ku islaaxinaynaa insha allahu tacaala waa madashii weeye waannu wada leenahay xaajada waannu wada leenahay insha allahu tacaala tolweynaha maanta halkan isugu yimid horufadhi magaalada horufadhi iyo dhulbahantaha dega ee dhexdhexaadka ah siday noola shaqeeyeen waa mahadinaynaa magaaladan allaha barakeeyo abaarta haysa allaha ka dulqaado oo barwaaqaha loogu bedelo colaaddii ay soo mareenna ilaahay dib uma soo mariyo ilaahay saasaan ka baryaynaa walaalahooda isdilayna allah u nabdeeyo
ciidanka amniga inoo sugaya dhallinyaradeenni iyo wiilasheenni iyo walaalaheen ah allaha barakeeyo wanaag mooyaane xumaan ilaahay inoogama keeno kuwa sidan inoogu shaqeeya mar walba allaha ka yeelo ilaahay saasaynu ka baryaynaa hawshan aynu hayno allaha faa'iideeyo ilaahay wuxuu hagaajiyaa hagaagsanay allaha inoo hagaajiyo ilaahay ha inoo barakeeyo nabadda aynu walaalaheen la doonayno allaha inoo siiyo inana jannatulfirdowsa allaha inugu siiyo inta ka shaqaynaysa u ordaysa wax kale ilaahay hadduu inoo aqbalo camalka waa cibaado waxaynu haynaa haddii ilaahu naga aqbal ilaahu noo aqbalo abaalkii aad ballan qaaday ee weynaan nugu sii ilaahay saasaan ka baryaynaa walaalahayana nabadgelyo noo sii ilaahu intii kale dhibidhex martayna noo